shaqa hal sana oo contract yaa laysiiyey. Shaqada marka waxaa laga shaqeynaa bannaanka. Waa kuwa magaalada qashinka gurbiya. contract lagaasii. Haa. Sax waay. Bacaha dhulka ku dhaco ul baad soo qabanaysaa kabacdi waxaa ku ridaysaa weel aad wadatid ma fahanti saasaa ku riday alaabta ma qasta. haa marna baaskiil aa riixe baaskiilka marka wuxuu leeyahay afka hore wuxuu ku leeyahay meel qashinka lagu shubo magaalada waaya magaaladan waxaa la yidhahdaa Ostanda xeebay leedahay xilliga samarka Soomaalida joogto waddankoo dhan inta imaadaan sax maalin maalmaha ka mid ah anoo baaskiilka riixayo oo dharkii shaqada wato qashinkiina ka gurbaayo jidka waa waxaa iga soo horbaxda gabar aad u qurux badan aad iyo aad qurux lama dhihi karo way dhaaftay inta lagu yaqaan way dhaaftay haa aad u qurux badan tahay marka gabadha magaaladana ma degana markii anay aragtay inaan Soomaali ahay fahantay inaan Soomaali ahay fahantay sax waxay ugu tiri abu waxay dhahday inaan kula hadlaan rabaa waa fiiriyey waa aamus waxaa rabaa hay tiri abu inaa ii tilmaamtid stationka tareenka laga raaco haye stationka meesha tareenka laga raaco inaa ii tilmaamtaa rabaa ma aqaana meelay ka imaatay aniga maadaama aan wato وعليكم السلام وكادي ما دام أنا مركا أنا قدركي شقادة وقشن عن جدك قربنايو كمان ده وحن كلها مركا هذا أبو استيشن كإترام الصومال كل ما هلين Sorry I don't understand I'm Hey What is that I'm from Eritrea دحان because markii shaqadan wataa qashinka gubinooya gacmaha qashin baan wadaa naagta quruxdeeda markaa arkane macnaha de Carlo naaq waxaan aragtay iska taqaasana sida caadiga ee marshada gashay waxaan ku dhahay sorry sister I'm from Eritrea daxa can you speak I said sorry my brother how came that payment train station ka if you want the station yeah you can go this side and ma fahanti صح gabadhi way iska baxday gabadhi markay iska baxday 3 maalin ka bacdi gabadha qaraabanoo magaalada degan soo wacday doonka waxay dhahday galabta markaa shaqada ka soo baxdo isoo mar gabar cidaha imaataan ku baraah gabadha marka qaraaban ahay oo u tagaa marmar waa isaragnaa qaraabo dhawaan nahay shaqadan ka soo baxay xaafadii markaan tagay kafeeyaa la ii shubay aniga kafeegaan jeclaa kafeega markaa cabay gabadhi guriga ku jirtay waxay tiri doonka gabadhii qaraabada ahayd aad joogta aan ku baraa heblaayoy soo bax wallaahi beenkuuma sheegaya waa dhab wallaahi hay soo baxay gabadhii aan ku dhahay aniga Eritreana ah ceeb badana hay sheekadeedii hadana baati wada marka aan jidka ku arkay iyo marka guriga ku arkay qurux baanta baati wada gabasaar gaduuda iyo dirac kaala iska arag cilaan oo marsanay waxaan isbaranay barasho aniga aan xishoonayo gabadha inay qosolka isku celinayso abu barasho wanaagsan ma sha Allah yuma lagu dhahaa macna ayadana qosol isku celinay waa u jeedaa anigana wax ilaa waxaan sameeyay oge tanna ma oga ma ka xasuustaa marka may waa u jeedaa gabadha inay xasuusto qosolka isku celinayso hay kafeegi gooran dhameeyo qoway kabahan gashay waxaan dhahay waa goynaa hadda ma fahmin
صح ها وقوينا هدا إن شاء الله وإن سوق قبنا هدا نو هذا شقة كيما ذو ودنا وأسكسي عنا صح markaan guriga ka baxay oo xaafadeeda aan u sii dhawaatay aan qaraabada ahayn aan wacay waxaan dhahay quraxay gabadha aad u qurux badan tahay laakiin waxa u sheegtaa nin iyaga inuu magaalada ku jiro ada nin aniga inuu magaalada ku jiro u sheeg صح maxaa ka wadaa dhahday hadday gabadhaas ku dhahdo ninkan waa arkay meesha fadhiyo yukaarlo waa arkay hadday ku dhahdo nin iyaga magaalada ku jiro sheegaan dhahay marka kugu dhacday iyo tayada waa isku mid